aan ujeedadan heestan u sameeyay wax kala ma hayn dadku xiraan qasada beeda qasada beeheedo aan igu dhacday laakiin qasada dhabta deetan buu ku qortaan oo isku daweyn karay iyadoo guriga waan ku haysan karay laakiin sababta keentay inaan fanaanin u keeno inaan yacni dadka u soo gudbiyo waxa ay ahayd waxa jira fikrado inagu dhex nool laakiin dadka qaarkii khalad ku ah tusaale ahaan inaka markaan jeclaaday wuxuu ku yidhi seed waxa jeclaatay adoo wax arkaynin taasina waxay eray xaqirayay dadnimadayda qofnimadayda inakii kaliya maaha dad aad u tiro badan ayaan ku arkay su'aasha qudheeda ay weydiiyay markaan ka sheekeeyo masraxeedu yiraahdo dee jacayl bay igu dhacay anigoo isee jacayl kugu dhacay ma aragtidee ay isku weydiiyaan si fikradaas markaa ay khaldan ee dadka qaarkii ku jirta ay meesha uga baxdo ama dadku ay u rumaystaan inuu qofkan indhaha la mid yahay dadka kale kala mid yahay dareemada dooqa iyo doorashada iyo runtii hamiga iyo hanka waxaan heestan markaa u soo gudbinayo ama dadka ugu sheegay wax weeyaan oo kaliya in ay dadku ogaadaan qof indhala iyo qof indha qaba in ay ka sameeyeen yihiin dooqa iyo dareenka inuu qof jeclaan karo waxna nici karo wax diidi karo waxna dooran karo inta way ujeedada ugu weyn heestan ina nafsiga ku daaweeyo ka sokow in dad badan maskaxdooda ku koriyo oo wax ugu sheego ay tahay ujeedadeeda fog adoon dayma igooray caashaqan daashadee anigoon ku diiday xigmado horaba tiri anigoon ku diiday xigmado horaba tiri isha ruuxa deeqay cabdiraxiin igraal noqolaal khadar walaal halkaa ay ku yara noqo yacni halkaad leedahay isha ruuxa deeqay ma aha laakiin waxa weeye isha ruuxa deeqaa qalbigana daweeyo markaa ereyga